dunidu tadaafuc casbiya midkeedba ku jirtay laakiin dadkii dhisma Soomaalida maanta joogta waxay dhaahdaan gaala laynagu itixaamay gaala caynkan oo Itoobiya ka samaysay oo Kenya ka samayso qolad joogta maxaa la yiraahdaa xeebta xamarba wadankeena maamusho caynkan oo warda ninkii tashakari waayo waa loo taliyaade dunidu waxa caynka carruurtu ma tashan karto waa loo taliyaa bini'aadamku wixii tashakari waayo waa loo taliyaa cid u talin karta u timaada mushkiladu waa inaga ma hayaga iyagu waa nin dantiisa raacanaya lama yiraahdo niyo axmaq baatay maxaa dantaada u daba gashay tiisoo ila sharaya waa nin ragayd oo tiisa ila sharaya cidda doqoma ahi waayo waa inaga adaa taagan tuulada nagu xigta nagu soo durkina waa ka soo adhigiinu uu soo dhaafay halkii uu daaqi jiray sanadihii hore ayaa taagantay inaad duni kale wax ka qabato iyo dad kale inaad wax la qabsato daaye tuula badan ku xigtay adhiga ka ilaashanaysa walaalahay halka reerkiinu ma degi jirin waa ka soo talowdeen xuduudi oo goorma reex ka celin marka cidda iskaba ilaalinaysa haduu walaalka yahay iyo kii dad bay isugu dhaweydeen yaad iska celin kartaa marka Soomaali cidima jabinayada isjabisay xaqad waa ka muslim cidima jabinay isaga isjabiyay isagu markuu istumay ayaa la bakhti wareemay markay dadka nool ahaayeen dunida dad bay ka ahaayeen tirsan waan cidina soo hungureynin haddii la hungureeyana wax iska dhiciya waa dhici jirtay dagaal in maalin laga badiyo laakiin iyana berritay ka badin jireen dadku saasuu isu riixay laakiin waanu iska fadhayna dunida ina soo gaadha oo dawlad noo sameeyo dunida kaalay oo dad naga dhiga wax nin weyn ku hadlaba maaha يعني وحنا وين يكون هذا انتم ما استاغوا معها الدور وصاع عرروا وحنا قبطه سبحان الله كسبنا سوري عربي جدا وانا ما قال كاين هذا هو ما الكلام اذا شيفا انا معي كل قال كبر دحفا انت غير سالسا كبر دحفو هذا واحد هذا هيدنا كيتو waxaan markaa ugu dalleeyo ayuha al-hibba quraanki oo cusub oo waxba iska bedelin bayna dhaxyaala sunnadii nabiga oo la hufay oo waxba iska bedelin ba dhaxdeena taala taariikhdii dunida mid muslim iyo mid gaaleed boo la hayo ayaa taaliya tajaaribtii bini'aadamka taariikh bay muslimiintu leeyihiin as-sumud fi al-halat as-sa'ba qoraaya badan oo reer galbeeda waxay leeyihiin dadkani waa laabud inay soo noqdaan laakiin dib loo dhigi karaa rag way sayaaye la joojin karaa inagu waxaan leenahay ilaahay wuxuu yiri isagoo ala lisaan nabiyullah ibrahim ka ala lisaan nabiyullah yaqub innahu la yayasu min ruuhi allah illa alqawm alkafirun ilaahay naxariistiisa kama quustaan dadka gaaloobay mooyaane muslimku quusba ma yaqaano Umar al-Mukhtar baa laga hayaa kelmada nahnu la nastaslim ya Umar al-Mukhtar kii Talyaaniga ay isku hayeen Libiya ya wuxuu yiri anagu isma dhiibno ya ama waanu guulaysanaa ama waanu dhimanaa buu yiri yani wuxuu tilmaamaya noloshu isdiibka inaan ay aqoonin hadaba al-islaam la mahalata qadim wa sawsada wa fardun alayna inaynu amal sameeyno qul i'malu wa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa halayna war amal sameeya shaqa qabta alla iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintu way arki doonaan waxa qabataan laakiin leena ma oran qulnaamu wa sayansurukum Allahu malakum ta'ala ساحد إلهي بايدين قولين يا ملك قرنت ما شفت